راجعون أنا ku hadlayo magaca qoyskeena reer ugaas waxaan la qaybsanayaa tacsida Soomaaliya oo dhan xalay waxa naga geeriyooday ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Rooblo ugaas Warfaay oo ah ugaaskeenii 20aad maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho Ilaahay u naxariisto ugaaskeena ma ka dhimanin anaga qoyskeena oo kaliya laakiin wuxuu ka baxay Soomaaliya oo dhan wuxuu ka baxay reer Hiiraan wuxuu ka baxay dadka ku nool gobolka Hiiraan iyo Soomaaliya oo dhan ugaasku wuxuu ahaa ugaas nabadoon wuxuu ahaa ugaas dadkiisa ku dhex jiro wuxuu ahaa ugaas og dadkiisa iyo ehelkiisa iyo dadku ugaasku u yahay yaqaan waxay u baahan yihiin una taagan habeen iyo maalin waa geeri xanuun badan runtii oo aan hadal lagu soo koobi karin waa geeri xaq waaye walaakiin ma la filanayna mana la sugaynin marka waxaan leeyahay Ilaahay jannada firdawsaha ka waraabiyo caruurtii iyo xaaskii uu ka tagayna waxaan leeyahay samir iimaan iyo annaka dhamaanteanba Ilaahay anaga siiyo Ilaahay jannada firdawsaha ka waraabiyo in loo wada duceeyo la soo cafiyo runtii waxa naga dhaxbaxay qof oo qaali ah oo dhaxdeena qaali ku ah ayaa Ilaahay naga oofsaday rabbiyaa naga jeclaaday waana la dhimanaa waana la ogyahay in la dhimanayo marka Ilaahay jannada firdawsaha naga waraabiyo hadal ma lagu soo koobi karo runtii waxa oo aan dareemayna xalay ilaa maanta laakiin Ilaahay jannada firdawsaha naga waraabiyo wixii bartakood ah oo la maraayeen sidii ugaasideenii hore loo mari doonaa waxa la geyn doonaa xarunteeni dhexe waxa la geyn doonaa degaankii lagu aasaayay dahar ugaas haduu Ilaahay yiraahdo waqtigeedana waqtigay noqoto waa la isla wada socod doonaa Ilaahay hanoo wada naxariisto inta dhimatay oo asikaliis aan ahayn Ilaahay oo naxariisto waxaan rabaa waxoogaa inta aan ka raaciyo oo ma u dhimanin cudurka abti ma u dhimanin tii rabbiya u timida iyadoo mar walba cudurka laftirkiisa tii rabbi ay tahay haddana abtugaas Xasan ma u dhimanin cudurka ma u dhimanin marka dadka meelaha la maraayo inuu u dhinto COVID-19 ma u dhimanin abti tii rabbiya u timida iyadoo lama filaan marka taasna waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago iyo reer Hiiraan dhamaantood loona diyaar garoobo imaashada aan imaanayna Hiiraan haduu Ilaahay yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh